labaatanka November waa maalin ku weyn ummadda Soomaaliyeed gaar ahaan bahda waxbarashada waxayna ku aasteysan tahay maalinta macalinka Soomaaliyeed oo sanad walba maanta oo kale la xuso. Maamulka iyo macallimiinta iskuulka Maxamuud Mire ayaa maanta Muqdisho ku qabtay munaasabad lagu weyneeyay maalinta macalinka waxaana ka soo qayb galay maamulka ardayda, macallimiinta iskuulka iyo marti sharaf kale. dhammaan marti sharaf ka soo qayb gashay munaasabada ayaa goobta ka sheegtay qiimaha uu macalinku ku dhaxleeyahay bulshada Soomaaliyeed iyo farxadda iyo reereenta ka muuqata macallimiinta iyo ardayda wax la koobi karo ma aha kaasna anaga farxad weyn bayna gelinaysaa macallimiinta dugsiga Maxamuud Mire hadanahay taasna waxa iska leh mahad iyo mahad celinba maamulka dugsiga macallimiintiisa iyo ardaydiisa oo ah isku duubnaan dheer ay qabteen ardayda way ku mahadsan yihiin ilaah baa mahad leh iyo macallimiintii la duubneed baa inta soo qaban qaabisay aad iyo aad ayaan ugu mahad celinayaa anigoon hadalka ku sii dheereen yacni ma sinaaliyiri ruuxu wax bartay iyo ruuxa aan wax baran maamulka iskuulka Maxamuud Xirbi Titoresa Khadiija Aadan Daahir ayaa dhankeeda hambalyo u dirtay guud ahaan bahda waxbarashada iyo macallimiinta Soomaaliyeed xuska maalinta macalinka awgeed. macallimiintii iga horeeyay aniga waxaan leeyahay maanta farxadayda lama soo koobi karo sababtoo ah waxa hortayda ka muuqda jiilalkii aan u soo bilownay galaaska koowaad qaarkood ay form 3 iyo form 2 iyo form 4 bayhi waxaan leeyahay maanta waa maalintii macalinka waxaan leeyahay hambalyo 1974 bishii November 22 ayaa loo aqoonsaday maalinta macalinka Soomaaliyeed sanad walba maanta oo kale la xuso iyadoona inta badan la fasaxo dugsiyada iyo goobaha kale ee waxbarasho si loo weyneeyo xuska maalinta macalinka. Cabdulqaadir Fantastic warbaahinta qaranka.